haddana waxaa kusoo dhigataan xibin gaaban oo aan diiradda ku saarayno wadamada muslimka waddan ka mid oo ku yaala qaaradda Aasiya ayaa waxa uu markaasi isagu ku soo rogay dalkiisa inuu ku maamulo ku dhaqanka diinta Islaamka. dowladda dalka Brunei ayaa meel marisay sharci cusub oo dhanka shareecada Islaamka waxaana dadka geystay gogoldhaafka ayagoo guur horey u soo maray iyo ragga isku jinsiga ayagu markaasi isku galmooday lagu xukumi doonaa dil markaasi loo adeegsanayo in lagu dilo dhagax. waxaa xeerkan cusub la dhaqan geliyay 3 bisha afraad ee 2019 oo ahayd maalin Arbaca. waxaa sidoo kale gacanta laga goyn doonaa ama gacmaha laga jari doonaa dadka ayagu markaasi lagu helay inay geysteen xatooyo ama ay waxadeen oo tuga yihiin. hase yeeshee dowladda Brunei ayaa cambaarayn waxa ay kala kulantay dhanka caalamka oo markaasi ay caalamku ku tilmaamay sharcigaasi inuu yahay mid ku xadgudbaya xuquuqda bini'aadanka. mid ka mid ah dhaqameedyada koonfurta bari ee kaasi ayaa waxa uu sheegay in markaasi la barato diinta Islaamka oo la xoojiyo barashadeeda. guurka ka dhaxeeya dadka isku jinsiga ayaa markii horeba ahaa mid sharci darro ah. dadka lagu helana waxa lagu xukumi jiray xarig 10 sano halka haatan ay yihiin kuwa markaasi lagu xukumi doono dil dhagax loo adeegsanayo. muslimiinta ku nool dalka Brunei ayaa 4 meelood 3 meel ka mid ah bulshada dalkaasi. sharciga ayaa qabanaya inta badan shacabka muslimiinta ee dalkaasi ku dhaqan halka ay jiraan qodobo qabanaya dadka aan muslimka ahayn ee dalkaasi ku dhaqan. dadka kaliya ee uusan sharcigan qabanayn ayaa waxa ay yihiin dadka carruurta iyagu markaasi aan qaangaarin. boqortooyada Brunei ayaa maalgelinta ugu weyn waxa ay ka heshaa shirkado markaasi si gaar ah loo leeyahay. qaar ka mid ah jilayaasha caalamka ayaa cambaarayn u soo jeediyay kadib markii lagu dhawaaqay in sharcigan uu ka dhaqan gelayo dalkaasi. boqorka Brunei ayaa horey waxa uu ugu soo rogay dalkaasi in lagu maamulo sharciga Islaamka iyadoo markaasi dib loo dhigay ku dhaqanka sharcigaasi. balse hadda ayaa sharcigaasi waxa uu yahay mid dhaqan galay oo markaasi guud ahaan dalkaasi looga dhaqmi doono. sharcigan cusub ayaa sidoo kale dhigaya in qofka tagi waaya salaadaha jimcaha la ganaaxi doono ama la xiri doono. dhaqangalka qaybta labaad ayaa waxaa ka mid ah in dadka khamriga caba ayagu ay yihiin kuwa la karbaashi doono oo markaasi ay kala kulmayaan sharcigan cusub ee ka dhaqangeli doono dalkaasi. dowladda ayaa sheegtay in sharcigan uu yahay mid dhanka alle ka yimid oo dadka in lagu xukumo ay xaq tahay.